noloshu waxay bixisaa wadooyin badan oo la doorto, laakiin wadadayda kaliya ayaa ah in adiga gacantaada ku jiro ilaa dhamaadka noloshayda. waad iga istaahishaa inaan ku riyaaqo, inaan ku xushmeeyo. waxaan kaa helaa bogaadin, waxaan kaa helaa jacayl dhaba. waxaad qalbigayga ka dhigtay iftiinkaas oo ka wanaagsan shumaca dhalaalaya. waad ku mahadsan tahay inaad ku jirto qalbigayga oo aad i dhammaystirtay. markaan adiga kula hadlaayo ama kula sheekaysanayo, adiga aantaa uma malaynayo inay nolol jirto. waxaana xaqiiqo ah haddii aadan adigu jiri lahayn, jacayl iyo farxad noloshayda maanta maysan ku jiri lahayn. xiisuhu wuxuu kordhiyaa aragtiyada caashiqa, qalbigayguna wuxuu u garacmaa si dhaqso leh markaan isha ku saaro. arrinta ugu macaan ee noloshayda soo marta ayaa ah inaan maalin iyo habeen adiga keliya qalbiga kuugu haayo oo aan kaa fikiro. markaan fiiriyo kumanaanka xidigood ee cirka ka ifaaya habeenkii, waxaan soo xasuustaa indhahaaga quruxda badan, maxaa yeelay waxay u iftiimaan sida xidigaha oo kale. markaan arko qorraxda waan ku soo xasuustaa, maxaa yeelay waxaad u dhalaalaysaa maalintayda oo keliya. mar walba waxaan jeclahay inaan ku arko adigoo faraxsan. waxa ugu quruxda badan ee aan arkana waa dhoola caddeyntaada. markad xurumooy dhaqaaqday xadiya jirkay xafay xubnuhu idil bay dubaxshay. xabiibi markaan ku eegay xaggaaga markaan jalleecay, xaskiya maankayga qaaday. xabiibi markaan ku eegay xaggaaga markaan jalleecay, xaskiya maankayga qaaday.